دوني إيلتي وقت الدوبانو تبين ذا إبليس لقد حيبا دتكو تاقي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. القرآن والشباب. أما هنلاحظ القرآن والسنة والشباب. يرو هردعة. ونسلي هيدي لهيد مدرسي أيوه هردع وياهي. وحين ربنا قفنا اللي يراه ومسلمة وموحدة إن نكون إنه إننا ينبه إن نكون إنه شهوات كود إنه حمتان سوساس ما درسي إنه وإنت أمرك إن كأت كذان إلهينا توفيق ويدستان إن شهوات كودي جنسيها سأنو قيحو إن عبوريان أنت عبوري كران أمس الشرعية النافيان وحلالة أو سبيان taas markaa hadaynu halkaa u soconno waxa ka horeeyay waxa weeye horta qofkii dhalinyarada ahaayee muslimka ahaayee inanka iyo inanta ahaayee diinta ku dhaqmayay ma haynaa mise ma hayno hada huwa su'aasha markaan duruustan qorqorayay su'aashaas ay ugu soo dhacday markaa tusaalan markaa maskaxdayda markiiba soo dhacay gaadhiyada wadinkan gaadhiya badana wadinkan gaadhiya wada wata gaadhiyada marka la samaynayo dadkii sameeyay waxay ugu tala galaan gaadhi hebel in petrol lagu shubo petrol in lagu shubo Soma gaadhi kalena waxa loo sameeyay in diesel lagu shubo Soma gaadhigii dieselka loogu tala galay hadaad petrol ku shubtid ka war deedna aad tiraahid start deedna start ma waayo deedna aad garaashkii geysid maxaad samaysay gaadhi diesel oo hayo petrol baan ku shubay marka ayaa waalan ma gaadhiga waalan mise adiga waalan way garaashkii waa ku sameeyay gaadhigii mashiinkii waa lagu nadiifiyay waa laga wada saaray waa la soo baxday waxa lagu yiri gaadhigaagu waa petrol diesel hasiga shubin waa soo baxday stationkii ugu horeeyay gas ka timid gaadhigaagu diesel buu ahaa petrol baad ku shubtay hadana garaashkii baad ku noqotay lacagtu buu ka qaaday isagu day intuu ka shubo waa bahalka iska hagaaji waxaan uga socdaa tusaalaha waxaan uga socdaa qof dhalinyaro ah oo bi'a muslina aan joogin wadan muslina aan joogin salawaadkiisa iyo cibaadadiisa iyo dhikrigiisa inan ba'aanay u dhowranayn indhihiisa iyo dhagihiisa iyo environmentka uu ku nool yahay oo idililid ay ku tahay isagii iyo iyadiina aanay u diyaar garaysnayn say iskaga caabin lahaayeen warmaha shaytaanku ku soo gamahayo aan u diyaarsanayn ayaa waxaynu leenahay sideebaynu uga ilaalinaa shahawaat waa sidii qof inta la qaaday labada gacmood la xidhay labada lugoodna la xidhay la yiri orado badda ku dhac haddana ha qoyin ha la yiraah labadii gacmoodna waa ka xidhan yahay labadii lugoodna waa ka xidhan yahay badweyn baad ku tuurtay maxaad leedahay iyaaka an tabtalla arwa kaasa dhibic biyaha ku soo gaadho heesootiga adiga adab badweyn ku tuuray marka shahawaadka inanka iyo inanta muslimka ah inay iska caabiyaan oo ilaahayna tawfiiqda uu siiyo shuruuday leedahay shuruudahaasaan akhriy haddii shuruudaha inanku ka soo baxo ilaahayna waafajiyo inantuna ay ka soo baxdo ilaahayna waafajiyo subxaanahu wa tacaala xumahaasi wuu ku yaraan waana iska caabi kar waa maxay markaa waa diyaar garow loo diyaar garoobo inuu qofkaasi iimaankiisa dhiso cabsidiisa ilaahay dhiso ku xidhnaashaha ilaahay uu dhiso marka bal waxaan isii bal waxaad eegtaa bal nabiyullaahi ar-rajul salih luqmaan oo ka sheekeynaya quraanku bal luqmaan inankiisii wuxuu ku yiri 5 aayadood oo bal umar walba oo yaa bunaya inan ula hadlahayo bal waxaan rabaa markaa tilmaanta luqmaan inaan soo amaahano bal inaguna ubadkeen inantiina aan ilaahno inantaydiyay inankiina aan ilaahdo inankaygiyow bal tilmaamahan qaada hadii ilaahay idmo ilaahay quraanka wuxuu inoogu sheegay subhanahu wa ta'ala wa id qala luqmaan li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la dhulmun 'azim xusn nabi maxamed oo uga sheekay xilli uu nabi luqmaan uu ku yiri inankiisii inankaygiyow isaga oo waaninaya waxa koowaad ay tahay ilmaha laabtiisa in lagu rido wal ilaahay ha u shariik yeelin
إلهي أو الله شريك يلا وظلم وينه ومحي مركات المامتو waxa koowaad ee ilmahaaga laabtiisa aad ku ridaasay shahawaadka uu iskaga caabiyo weynaanta ilaahay laabtiisa haga shoorta qof aan ilaahay agtiisa aanu ku weynaynin de waxaad leedahay adigu dhawdha maxay tolo catuur dhawdhu dhici mayso laana wixii ka qaban lahaaya weynaanta ilaahay muraaqabada ilaahay baan laabtiisa qofkan aan ku jirin waqtiga inagu yaraha socdo uu sii waday luqmaan inankiisii buu wacdinaya bal wuxuu yiri yaa bunaya inankaygiyo ووينانت إلهي بلقيها هي ولابتس الربا إلا دغو إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير المهم لو بربارنا يا ما لو بربارنا يا إليها وشريك يلين ما لو بربارنا يا إنك يا إنتي إلهي واكو أركا يا بني إنك يديو وحلا أركو وحا أوغير حتى تحي أو ولي ما نجح دول صارا أما عرها مقناض أما دولها مقناض هي يأتي بها الله إلهي باكين يوم القيامة والله وقول حساب تمي المهي أنا ما كائنا كده اللي يرى يا إنتي لا بتوضع هديك الشو وحكستود سميسو هي هذا هوين هذا يوم القيامة والله وقول حساب تمي إن الله إلهي لطيف خبير ويا قضب كسد هذا ما يد سد هذه والنبي قاس إن كيسي كل دردارمي سيحمها وقال نقضوا قاشان يا بريا إن كيجيو أقيم الصلاة إن كي إن تيجيو أقيم الصلاة صلاة أوك وأمر بالمعروف حما وناجى الراب وناجى أمر حماها الراب هي واصبر على ما أصابك حلا لو حي كتاب تأدب أهنا الماء إن بدل قال له أتكيسن كرنقو أنت هدات كسر بحديد محيري إن ذلك من عزم الأمور وح الملقو أبابيو oo inan lagu ababiyo oo lagu barbaariyo waxa ugu qiimo badan salaad ooga noqo wanaaga ku farax xumaha ka nax wixii noloshaada taabtana u dulqaado oo dulqaad la noqo ha ooyin ha werwerin ha walbahaarin maxay ani igu dhacday ha oranin wax aad isku ilowsiisa ha doondoonin maan dooriye aad ku ilowdo mushkilada ha doondoonine wasbir ala ma asaabak ilaahay xaqiisa ka timid انت هدي لغا هلو يري لقمان ان كيغيو ابا هدي انت لغا هلو هي ان ذلك من عزم الامور الرمها ugu waaweyn qof ilaahay uu siiyo wa inta maxayto lawey ilaahay ha u shariik yeelin ilaahay uu ku arkaya wax kasto samayso uu arkaya waanu ku maqlahay waana keeniyo mal qiyaamo salaad ooga noqo wanaaga jeclow xumaha nac waxa ku taabta ee dib ah kar iyo kurbad ku haleelana ku adkayso oo ilaahay tala saaro inta hadaad la timaadid inna dalika min azmi al-umur وصي وذا اللقمان محيرين كيسي آبو ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور هايسقاد قادنا ببنت هايسقاد قادنا وسنكها كهدلي طاووس هايسقاد لغن طاووس إنا يهي طاووسات هايسقاد لغن مكاد سعوتيد سكي إرباطة هاي آبو أذكونا قوي يرسعو فانفان كي يمرقها يركو قواي مودين ورآير آير صعود ليهي waxaad noqotaa qof hambal ah oo dhul socda oo caafimaadkiisa ilaahay uga mahad celinaya ha isbidin bi ilaahay subhanahu wa ta'ala ayadii muxuu ku khatimay inna allaha ilaahay la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ilaahay ma jecla kuwa isqaad qaada fakhur ee waliba maxay jecel had yajeer inay faanaan ilaahay dadka subhanahu wa ta'ala ma jecla wuxuu ku khatimay nabiyullah الرجل الصالح لقمان وحكو ختم دردارا كيسي واقصد في مشيك آية صعود بورتنا قاري ميسد درر للكن الدلولي ميسد كبيري ورايا صعود ها واقضض من صوتك عدكاغنا ددك هكو ديرين عد لما قلو وحا ugu xun codka dameerka ah tilmaamahaasi horudhac waxay u tahay ilmaha inanka iyo inanta qurbahan jooga ee aynu rabno inaynu ku wacdinayno ku waadino shahawaadka ka foojigno marka qof rabbigi yaqaana ilaahay yaqiintiisu ku weyn tahay salaad ooga ah xumo oo dhan nacab faxsha ka fogaanaya kibir badnayn isqaadqaad badnayn hal lagu sheega aan lahayn dadka aan yasaynin dulqaad iyo sabir leh inta qofkii laga hela ilmaha yar lagu ababiyo intaasi
waxa uu qofkaasi haystaa ilaahay ka sokow gaashaan u hee iskaga caabiyo bal sagaalka qodob ilmaha aan haysan ka warrab in lagu tarbiyaynin in lagu ababinin in cabsi ilaahay agtiisa aanay ku weynayn maalin baa culamadii hore muslimiinta caalam kamida malcaamad buu dhigay dugsi ayuu dhigay culamadii hore ciyaalka markay diinta u dhigayaan yaqiin bay ku beeri jireen yaqiin halka imika muranka la geliyay aqeedada waxay ku beeri jireen yaqiin ilaahay weynidiisa ku beeri jireen macallinkii intuu soo qaaday roodi ayuu jarjaray arday walba malcaamada joogaba roodidii u dhiibay wuxuu yiri iga qabo markuu u qaybay buu ordo iga taga qof kasto idin kamid ah roodida waxaad ku soo cuntaa meel aan cidina kugu arkaynin ordo ku soo cuna ardaydii baa yaacay mid la hoos galay meel mid miis la hoos galay mid beel soo noqdeen hal arday baa haray macallin buu yiri roodidaada iga qabso buu yiri maxaad u soo cuni weyday macallin waxaad nagu tiri waxaad ku soo cuntaa meel aan cidina kugu arkayn mar allaala markaan doono inaan la dhuunto ilaahay baan soo xasuustaa inuu arkayo waa ku soo celiye macallinkii intuu istaagay buu ka taabtay ki yaraa madaxa laqad fahimta darsa ya waladi yaqiinkii ilaahay iyo caqiidadii maanta aad fahantay caqiidada la rabo ilmaha in lagu beero waa taa ku arkaya kali hadda ilaahay baa ku arkaya haddaad albaabka hoosta ka soo xidhato ilaahay baa ku arkaya kombiyuutarka kaliya markuu furay ilaahay baa ku arkaya موبايلka hawshu markay dhawdhawdu ay socoto ilaahay baa ku arkaya ilma yaro nooca ku tarbiyaysan ka boodayo oo ilaahay miyaanu ku arkaynin ilmaha nooca lagu ababiyo ee islaam maxay tolay qaataa way adag tahay inuu siibto laakiin ilma sagaalka gaashaan iyo sagaalka waxba aan ka sidanin oo qaawan oo qayaxan oo la yiraahdo orado hadaba Norway dhex boodbood hadaba deedna ya hasiisiibanin oo hasan bariirxan inna allaha la ya'jab hadithii saxiixaha إن الله لا يعجب صفاتنا عجب كإلهي والله سوغا سيدو إلهي سوغو سوغي إلهي ويابي محوك يابي بيو محوك يابي قفنا اللي يرأه إنن با وليس له صبوة أنسن بريرحان أنسي سيبا أنسق المرداجن ويحي والله يابا بمعنى وامحي wax allaala wuxuu ilmahaasi ku siiban lahaa ee ku simbirin lahaa dhalinyaradii uu hayaa xoogii uu hayaa waqtigii uu hayaa waxna waa yaalyaalaan haddana waa iska indha qabto laabto intuu xidhay ayaa wuxuu yiri haasha lillaah iguma ogidi waxa inna allaha la ya'jab bil barka allah ilaahay ilmaha sidoo la yaabo ilma dhalinyaro ah oo aan siibasho aan lahayn ilaahay waa la yaabay lidaalika wasalaadii oo la oogo ilmihi iyo cabsidii ilaahay lagu beero iyo bi'a uu ka soo baxo ilmuhu garanay aabihiin oo cabsi leeyahay oo hooyadii cabsi ay maxay ay leedahay oo aan kala maxay meel aan ilaahay agtiisu ku weynayn haduu ilmuhu uu ka soo baxo tisaguna wax kuma weynaanayaan qof walba tarbiyada meesha uu ka soo baxay la mid tahay ahadiith badan buu nabiga sallallahu alayhi wasallam ka hadlay halkan uu inagu waaninaya ayuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam isqiimeeya هل حديثها كقاطة وقت ونقول أوجد حديث كي بخاري ورنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحيد لا تزال قدم عبد لا تزول قدم عبد ولا جبري لما ذا ولا جبري كمزوشو الدماء قفنا إلهي كما هرب قاطع يوم القيامة إلا لو يديو شن سؤالات قف كستو إن جمدا شن سؤالات بإنه يلا حسوسنا كو عن عمره فيما أفناه عمري محاد كل ما يسنتي إلهي عمره بوكسي عمره هو أرزاق ما هو إنه أرزاق إنه عمره من نقال عمره هو أرزاق من بعد انتهى لي النبي صلى الله عليه وسلم ولا صاء آسي من كلا كدم بيت تضبط كي دبر ولا صاء آسي مكاسي أهل الصحابة دي لبضوا أهل الجنة مركاسو النبي يقول سيدابات السنتين miyaanu kan toddobaad ka dambeeyninkii hore aaw salaadiisi aaw soontiisi aaw zakadiisi aaw wardigiisi toddobaad uu ka dambeeyay geeri buu ka ajar batay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam innagana ilaahay umrigu ina siiya 20 30 40 konto intay doonto ha noqotay waa rizqi ilaahay uu ku bixiyay ha ku kaftamin hana saga ciyaarin idan wuxuu nabigu xadiina leeyahay waxyaabaha yawmal qiyaamaha ina la weydiinayo waa umrigaagi maxaad gelisay koow عمري سام الله شاقي عمري انت ugu qiimaha badneed baa la baxay wa an shababihi fi ma abla inta dhalinyarada hayd
intaad dhalinyarada ahayd 15 jirkaagii ilaa dhowr 30 jirkaagii ha qaarna waxay yiraahdaan 15 ilaa dhowr 50 kuwa aan waan galahaya hadda fiiri ha qaarna yiraahdaan soo kale niyada ma kana loo dhisayade Allahu musta'an alayhi tukra warda lafteeda ha da lafteeda fiima ablah waa lagu weydiinaya umrigaagina waa lagu weydiin dhalinyaro da si gaar ahna inan iyo inanba ilaahi waa ina weydiin وعن ماله حولهاجي halkeed ka keentay waa lagu weydiin xoolahaagi halkeed ka keentay iyo halkeed ku bixisay labadaba waa lagu weydiin ha halkeed ka keentay xalaal ma ahayd halkaad ku bixisayna xalaal ma ahayd waa la isweydiiha ha qodobaan badana sheegin baa jira wa ilmihi maada amila fihi ilmigu ilaahay ku baray aqoontu ilaahay uu ku baray hayaraata maxaad kaga amal fashay si aan xujo kuugu noqon oo waa ki Abu Dharr radiyallahu anhu oran laha adduunka waxaan yawmal qiyaama ka baqaya inuu quraanka ilaahay aayadaha quraanka safii soo geliyo saf quraanka oo saf lagu soo geliyo ka war aayad 6236 aayadood adiga kuufiga 6224 aayadood adiga madaniga بل لحكون يا الله بقول جرجر آيادود وصف كوسو قال كورا ما يأخرضي ها ما يقول عمل فشي ها ما يأخرضي ها ما يقول عمل فشي ما حد كي جوابي لحكون آيادود ما قاسوا أبو ذر ورنجري ما حابة إبرايبا من جاهل إسكا هذا أبو ذر ورنجري اللي حجة يقول نقني ما كان لي الماضي حق أيوب قليل هل قضوا جبا مركع شهوة إسلامكم ما حد يقوم مال ممري ها حديث كون النبي كشاجة يا معشر الشباب لن يرى من استطاع منكم الباءة كينا كرا إنه جورسدو إنني يا إنبه كريتان كينا واللبا إنن كينا إنه همتدي كجورسني هايستو تاكتيس أنت يتهاي كرتدي الرجايدنا وهايستو إن تناسل أسوكله النبي يقول في ركعة يا معشر الشباب لن يرى من استطاع منكم الباءة كينا كرا إنه جورسدو أو صحيح إنه جورسنا وحايستو ها فليتزوج حل كلام ماله فعل أمر وي فليتزوج جورسنا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هداد جورستان أغض للبصر وحي إيجسي هو ما هيستاي يا وحد دولسي وأنت تقول يتعلقون فإنه أغض للبصر حمه الإيجسي هل كان كاغفلا هي وأحسن للفرج حبنتي ترى كاغنا تنا كو إلى لنا سحاران كاغا إلى لنا سا وكي حديث كوها لبح بنود قفك إلى ليا جنة أنا يقول أقبل لن قاضي بالنبي صلى الله عليه وسلم لبدا دامود حبنت كجرته وعرب كاغا كأتكو labada bawdo xubinta ku jirta waa xubintii taranka labada xubnood qofka ka adkaada nabiga sallallahu alayhi wa sallam arabkiisana ka adkaado ummadda nabi maxamed ka nabad gasho ummadda nabi maxamed ma kale muslimiinta kaliya maaha muslimna waa ummadda nabi maxamed waa ummatul ijaba leeyda gaalkuna waa ummadda nabi maxamed waa ummatu dacwa iyagana inaan diin u sheegno waa ummadii nabi maxamed norweejiintu waa ummadii nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam سهدادو اكتسو نحيميسد او توريميسد وامدي النبي محمد نرويجي كلا جوغا النبي محمد با لو سو ديري صلى الله عليه وسلم inay maqlaan oo adeecaan oo fahmaan oo ku dayaan oo ku saliyaan sallallahu alayhi wasallam ma loo soo bandhigo ma loo sheego dacwadii ma la gaarsiiyay waa hawl kale marka xabiibku wuxuu ku leeyahay sallallahu alayhi wasallam war labada xubnood hadaad ka adkaatid ma bayna lixiyayhi wa ma bayna kaffayhi la yiri labada daamo carabka ka adkow labada bawdo xubinta ku jirta xaraan ma hina xalaal ma hina xaraan ka dhowr inta hadda la timaadaan buu nabiga sallallahu alayhi wasallam aniguna jannadan kuugu ballan qaadi buu nabiga sallallahu alayhi wasallam marka hal kale oo gabdhaha iyo inamadeena lagu awdi karaya oo shahawaadkooda lagu hanan karaya ma jirto aan ahayn falyatazawaj ha guursado guur aabihina uu dabcinayo hooyadiina ay dabcinayso inankiina uu diyaar garoobayo inantiina ay diyaar garoobayso oo la sahlayo oo la dhimrinayo oo la adkaynayn meherkeedana lagu adkaynaynin waxyaabaha jira marka meelahan aanu marmarayno qurbaha la sheego waxa kamid ah inamadii waxay ku leeyihiin waabanu diyaar baanu nahay hatta hablaha ku leh halkeen isku aragnaa horta illa saarka kaba horeyso miyaa horta
إلا ولادك عرب إنك قبية عرب كان محيري نظرة فابتسامة فاللقاء فموعد ثم كان الذي منهما لا أذكره فحدث عنه ولا حرج هذا وحي وروح وقبل ما هو تسحرك عندها قع كفتن يقصم أوكي alright بلن ما حق جابي با يا بلن ما قاعد يسكو قاتب ما هم لا تقو بلن ما official بهيد أوجي هيو هو يد أخته هيو ولا الكيد أوجي هيو جوري أوجو تجسيد جوري كذا كلها ساويسيد ما كنا عندنا كنا أبياشين الصوماليين hooyadeena Soomaaliyeed ma ka dhaadhicin karnaa inantu haday wax doonto yaanay dhuudhuumanon laab la gelin meel madoowe gurigaaga fadhigaaga albaabka furo koobka shaaha ama bigeys ku sii ama caana ku sii wax ka u dhig war soo galda halkan haduu markaa is afgartaan ahlan wa sahlan hadii is afgaran waayaan adeer nabadgelyo salaamu calaykum marka fursadii la isku heli lahaa la isku arki lahaa soo inagu abuurna maaha markaa shirarkana taas ay kamid tahay dhalinyaro hoosta wax ka eega aad baasantiina salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh